بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند استيال ومركلي برنامج كيني شاكو غابان صاحبة قيمة يقدرين تنقمضونو قيبتي الشنات الشاكادي لما قاعد بحضي جعيلكي جاريدا يا waxay noo joogtay maxaan curadaada ka ahaanay hadii aan ka farxin oo horaaba iigu soo adeegta miyaa gabadhaydii duc qabtaa tahay khayr Allah ku siiyo ay iga farxismaan waatan qaybtii lixaad ee sheekada oo aanu halkaasi ka sii ambaqaadno والله شقة شلان سو أرك شقة هذه أنا بشقة كوبانان تهاي إن لعكت شل أوجا سو قبل شل يودي سو إلى ما قيب سنين محب هرت معلم والبيلا قيب سنة سامانتي كلي أنت لا يكونها واتجا جد كن واقعنا دتك سلوش هذا يوابرتي نشرك حرنا حجابك حرنا أنت كبحوان تجا gaarigan halkan aan isaga baakimo meeshan buuq iyo qayla ayaa ka socoto waqtigana way iga ilaaday laakiin dib ma lahan intaan isaga baakima kadib waan soo noqonayaa hawl yaraan inta ka soo qabsanayaa gudahan والله ويل شيدنا soo socdo kan indhiisa arka waa dhaqan yahay umaleena laakiin hay galaan waa ku dayactay meesha la gaartaa la gaara in abo yaa gadaashayda ka soo qeylqeylinaya dadkan micna dar ee kula hadlayaan buuq meeshan bismillaah abo ma ii jeedid miyaan aniga ku yaraaye balan gadaal eego oo maxaad iga yaraysaa aniga kaala horta kaalaaba ku dhahoyaaye abo maxaa ii quursanaysaana kaalaaba ku dhahoyaaye kaalade yaad igu khaldaysaa adiga dal leh soo dhaqaaq ii imaw maya boo cid makugu qaldooy ma ogtahay laakiin horta abo ma ogtahay aan waxaa garo laashaa Soomaaliyeed iska dhiban waxaa degana suuq xoolaha saaka kasoo lugay oona ahaayo biyo lacag cabitaan ku caawma haysto lacag gaar ku raac ma haysto abo adoo maasan ka heli karaana wallaahi waa arrin laga damqado fiiri da'adeeda marka aad qiimayso gabadhan 20 xataa ma aysan galin waa shaxaad ay u soo baxay wallaahi wax laga xumaado waa abay ii sheeg maxaad u baahan tahay abo aniga wax badan u baahnay gaar raac baa u baahanahay waalidkaadi ma nool yihiin ها hooyaday way nooshahay okay waxbarasho maxaad u gali weyday maya buu aniga waxbarasho dugsiga hoose kaga tagay oo sababta maxay tahay marka aad waxbarashada uga hartay aan meel gobol ka soo qaxna marka xamar imaanana waxbarasho iyo waxyaabahaas dhan la ima geenin maxaa kuu kalifay marka abayn adigoo da'dan jiro oo aad u yar inaad laamiga soo istaagto oo aad qof wax weydiiso hooyaday odaha ayaa joogto ayada ayaa inoo shaqayn jirtay waxa inoo keentay aniga iyo caruurtii la dhalatay meeshaas ayaan ku yidaamin jirnay hooyaday markaan waa ay tabar dhigtay waxayna igu tiri orodoo soo xamaalo oo magaalkaas inta gashid waxaan cunno cabno xirano aniga iyo caruurta bal inoo keen
waayahay xirfado aad ku shaqayn karto ma taqaanaa anigaa fursad shaqo ku abuuraya maya aniga xirfado iyo waxbarasho iyo cilmi aan wax ku qabsado ma lihi shaqo diyaar ma u tahay markaa qof shaqo diyaar u ah miyaa tahay haa waan shaqaysanaya maxaan u shaqaysan waayena ma kaa daacad baa oo dhab miyay kaa tahay haddii aan shaqo ku geeyo si daacadi ah ma ugu shaqayn haa waan u shaqaysanaya maxaan ugu shaqaysan waayena wax yar inta igu sug carwadan ayaa wax yar ka soo qaadanaya ha iga tagin haye waayaaba waan ku sugayaa alaa talow haddana wiilkani muxuu ii wadaana meel kaloo sidaan camal oo laga shaxaatamo ma aqaano kule aniga asiga ayaan ka dhowr sugayaa wuxuu iga maxsan yahane waan ka dhowr sugayaa waana sugayaa inta ayaan u taagnaanaya meelna uma dhaqaaqayo cid dambana shaxaad ma weydiinaya intuu igaga imaanayo oo abayo iga raali noqo waxaan filayaa inaan kaa soo daahay maya boobe aan igama soo daahin laakiin magacaagii maanan ku weydiinin magaca abo filson ayaa la yiraahaa aniga oh filson maasha allah ina kaxeey gaarigan soo raac haye waayahay bali nabad may gadaal ha fuudhin horay soo fuud maxaa kugu dhacay aniga meeshaas ma mudni maya ha isliidin wax walba iyo darajo walba waad gaari kartaa markaa horay soo fuul adigoo mahadsan waayahay tartiib gaariga hana la gidin aan nolosha waa jeclahay maya waxba ha ka walwalin sida ugu macquulsan aniga ayaa ku waday horta xagee ii wadaan adiga aniga kuu sheegayo meeshaan ku wado laakiin adiga halkee baad degan tihiin kaamkii ma ii celi rabtaan aan ka imaaday ya kaam haa maxaa dhaca aniga kaamka ayaan deganahay kaamka miyaaba degan tihiin bo haa kaamka ayaan deganahay ma kaamkii aan aqaanay dhab ahaantii nolol aad u hooseysa ayaad ku nooleedeen haa kaamkaas ayaa deganahay buushaa nuugu dhex yaalo aniga iyo hooyada iyo carruurtii la dhalatay meeshaas ayaan ku noolnahay wallaahi waa nolol aad u hooseyso laakiin aan su-aal ku weydiiye gurigiina ma ii wadi kartaa si aan damiin aan u helo waayo wax kasta ayaa dhici kara haa waa ku geen karaa gurigeena hooyada ayaa joogto ayada ayaana damiin iga ah aniga okay waayahay ina kaxey abtiyo yaa qaaniga hadii bari ku arka xataa adila hadda kadib maalin kasta ay soo qaadeen calaalkayga dhaaf ii tur labadeeda doolar marka yeelay aaw labadeeda doolar niyo inta horta adiga meesha aamus maxay tahay doodan maxaa waay adeero horta haddaa imaata alxamdulilah ninkan wuu idili rabaa ku dhahay meesha aamus joog maxaa waay maxaa ku weestaa ninkan maxaa ku weestaa macalla ninkan waxa kula soo heshii suuqa xoolaha inuu geey intuu iga tagoyaa lacag keen lagu lahaa lacagtina waa mobilkaaba liiga xadabo hadda meesha wuxuu dhahay haddaadan lacag heenin intaa kugu dejina hay dhaafaan dhaanaa oo teleefonka iga maqan yahay soo raadsaday lacagaa kaa rabaa ula taagan yahay abtiyo ninkaa iga qabo waa gabadha meeshii kula soo heshiis maa geesi dharbaaxsho igu dhufta way dharmacjeen way maxay tahay diladaana samaysay alla dalbeele ninkaa way muujeedaa ma wajoonaay wallaahi way dhirbaxay ay hadda waa sii baxay labadiina waa baxa marka yeelay kaa lawraa inta u baxay idan maliidi anaa dilan hadda meelaana biyo ka soo gadanaa lacag xataa ma haystiye aamus gabadha ma bixi karto ii qaba gabadha joog tuug bawaaye maxay tahay abdi ma ujeedaa ablagaadiis ani nin weyn oo aabbahay camal waa lama hadlayo shib sabab waay muji soo yacaynayo aniga waxaa kula soo heshiiyey suuqa xoolaha ma geysa meesha war gabadhaan bixi karta halkan ii fariis horta gabadha meeray kula soo heshiisay meesheeda geey horta markaas kadib hadal adiga abdi meesha geemaa lacagba ma haysaani maxaa igu geenaa meesha gabadhaan baqaarkaan aan ku ballannay baqaarkii waa keenay
lacagteeda karaba oday halkaana soo tuuraay iyo oday intaa yeelay iyo soo bax iraac iyo afaaraas ay bilaawdo ma mootada loo soo diray mise anaa lii soo diray ayada bal iska dhaaf ka shakiyaba bal iska dhaaf anaa ku siinay gabadhan iska dhaaf lacagta abdi ninkaan lacag labada door anaysi adi maxaarta waxaa liigu heestaa madheeno hadda maxaarta ninkaan soo ii galay dharbaaxshadu igu dhuftay wallaahi inay haddaa isbitaal ii geey xitaa daawo iyo ma gasho labada door oo igu qabsanayo hadda hal dharbaaxa kugu dhufan lahaa ku dha Ethiopia ka dhicin adi dharbaaxshadii kugu dhaf iska dhaaf waa iska cafina hadda laakiin isaga nin weyn inuu yahay isku xusho saani uusa dadku ula dhaqmin أنا لهلا إن شاء الله مسميها أساس wax ma ka gelin wax lagu soo raacayna matid hadda kadibna wajigaaga waa fiiriyo mar dambana kuma soo raacay iga tagaa ku dhahay gabar adi camal weligee ma soo qaadayo wax ku ag xataa ma soo qaadayo بس لمبرك يشيك لعقت أنا كسينا لمبرك يشيك abti iska daa lacag siin ninkii dilay ma lacag siine aniga si laba door ana baayesa maana soo quraan saankiisa maqaayada ku galay أمس لعك كلام كسينا يا أمس waxa ma doqona ma ninkaan lacag oo hayaya ninkaan lacag oo haya kistiga ka qaada laba door oo dhiiba alla madaxa way canuna moodan zaid oo wada كليا محا اسكولات ديبان ku dhahay ninkaan iska dhaaf hadalka badan jooj xarta ay ninkaan lacagta daasiisid ani hadda xaafadeeda lacag ku aadi lahayn maro tirifar ba meena guriga waa uu geena aamus hay sila ku sheega lambarkeyga waa kaas bajaajta horta naga dirbi ninkaan asi ani aad waa isla hadleena laakiin ninkaan naga dirbi itu $2 wajiga tamarabiye bal sheeg lambarkaaga sheeg aan ku tuuray xaqu ku dhagan yahay waa kaas ibr 9 ku dambe u tuur bixiisa aqliga yartaa bal ka fiirso lacagtu waa istaa waxa u dambe lambarkayga ibr 4 u dambeys ka fiirso orodna dhaaf de eber 4 ii soo dhacdo ma tinta brada adna wax ma ku sheega mar dambe laamigaas labadii hal talaa ay siinayaan may talaa ay gula darinaa iska baax ninkaan iska baax amal markaa soo qaadaysa iska ilaali ani tala marib ayda tala rab oo kan wadne midda saaxiibada ahayn horto kaamka buushkii ugu soo martay iska dhaafay magaalada xitaa waa kala isgoyskan ka fiiri kan kala ka fiiri kanka saa u socday anaaba daalaba lacagna ma soo helooy qof dadooba raadin way maalin kasta wallahi wayaabana meel ay ka baxday dabeelaha duufaanada socdaa way hore u wadeenoo badweynta ma lagu riday qofta magaalada ma ka baxday gurigii ma iska joogtaa duqad ma aabaleen ku fahantay shaqo kale iyo arrimo kale ma aaday mas magaalada si fiican u fahanto horta dhal magaalo dheedheel ma iskaaga dhigaa maqal jiray magaalada ma fahanto wallahi billahi xirfadaada xal la qof bartid oo ku daaya Allah saaxiib xirfadeeda anaa oo baro qofta sorto marka hore anaa baqaldan hadda maanta waxa laga yaabaa magaalada inta isgoos aana tigin inay maro lugta marsaa laga yaabaa jeebka buuxsatay wallahi waa yaabana ma og meel ay ka baxday ilaahay soo saar horta ilaahay dib ma gaarsiin miskiintaas ciyaal maama iska daawoodeed ayada u weyn maanta waa yeel waa hadda dhul dhacdo shaqada inta iska deysay hay kartaa laakiin diil waa hadhoot wallahi billahi nixtaan dambi ku yeeshaa ka baqa gabadhan kaligeed meesha taagan oo islaada sameeyay taa muwaalinta mas way fayoodahay abaay maxaa ku dhacay maxaa meesha taagan tahay kaliga ya badana anaga war aragna abaay maxaa rabta lagu la saqiiradii dhulka laga taagnaa lahay xaarabta aadi labadan tilaabo taagana ma kira ka baxsataa mise dhulka wayda waay may abaay suxun ay fahmaan inuu ku caawiyo rabo meeshan qof adina duruufa ka muuqatay ya badana caawi ma ku dhahaani ar umadana shaqa loo dirsanay taagan yihiin hadda lacag weydii midka waxa laga yaabaa kabiis xitaa inuu ka kala tago caawi ma ku dhaalisay bana xaqa qaldan Soomaali isxaal oo ma falaawar loo dhahay ana ku weydii waxaas isxaamada iyo falin ba su'aal leeb kow iga siis waqtigayga qaadabe ay hadda ii sheeg maxaan kula qabtaa yareysan wiil yar in ahay si kasta wiil yar aan ku ana wax kasta kula qaban karaa maxaan ka caawiyaa nin ragana yaraa ma galo nin ragan lama yareysto taasna ogow bisingo wiilka ma iyo raahab ka dhacayse wallahi hora loo dhaarag ma yaraan galaa ninkii dhahay been ma sheegin saqiirka yarka hadda hoos u fiirinayaabo ergaas waaweyn ku hadlooy aboobo wallahi bila magaalada waxay ka degi laadaan niman waayal lahay hadda kan cunug yar miya qof weyn miya hogaabtay waa yaabanaha codkiisa waa yar yahay maxaa isku hadleen codkiisa waa yar yahay cunug yar camal uu hadlaa muuqiis waa yar yahay haddana maskaxdiisa waa iga sii weyn tahabo bismillah anaga yaa waragna wallahi maskaxda magaalada lagu qasaayo ninkan camal ka soo maaxtaa oo maleena
horta mafooda bas waa waalinta maxaa kale isku hadlay jawaabka sugaano waqtiga way ku dhameeyeen inay fiir hadaa waalna anoo magaalada marba gees laami u goynay arkay la faanta dacskiina ka tagay laakiin hadda inaa qof yow ahay oo meel taagan oo iigu imaatay waa u joodaan faanta labadan hadda qof waana waxa lagu tilmaami karaa adoo afaaro lagu dirsan oo caawi lagu dhin ilaa hadal lagu dhihin ilaa hadal umadu ku qasbo sadda labadan waa lagu tilmaami karaa bal umada garow dhiganeenay qofka wala xitaa doolaamiga ka saabaro ko iska taagsid geed camal maxaa laga faa'iidaa maxaa laga yaabaa meeshan qof ku sugaa moogtaadi dadka iska taagan inay waaliin ha u maleen hadda adaa waxaa ka baqaawo jidka u socoto inuu kaa soo qaldoom hadda inta u socoto ba ku caawiya naftirkaade war fiiri nolosha ka dhaxsantay dharkaaga buujada herbaadi oo shalay oo la keenaatay gaariga lagu kan wali xitaa lama dhaqan iga tag wala wala markaan adig ku imaanay waxna ku caawin waxna ku sheegay orod dhaaf caawin oo iga baahan tahay laakiin sheeg kartid yaa badan reebaadi lagu lahaa ma ogmay inaa dharkaan iyo shararkan dulufka xijaabkan iyo dharkaan kala jaajanka dalay leeyahay yaa ku sheegay inaa afti laba mar oo surwaal shaati tawala wadataa iyo kobolo door laga soo baxshay anaa ka handi badan saaxiib meesha maskax dharkan jeexjeex laga soo qaatay fiir saad banaan imood horta adi sharaab ku arkaa sida balaa idhaafno caawin nuuka ay baahan sigeed oo meesha ka baxa camal waxaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho la ogeysiinayaa in dhawaan macadka barashada cilmiga saxaafadda ee Danan Training Center uu bilaabi doono tababar ku saabsan barashada culuumta saxaafadda oo hab casri ah lagu bari doono dhammaan maadooyinka ay ka kooban tahay xirfadda saxaafadda. Waxaa lagu bari doonaa sharciyada saxaafadda, diyaarinta wararka iyo barnaamijyada, qaadida doodaha, barashada Adobe Audition-ka iyo sidoo kale barashada kaamirada. Xilliyada waxbarashada waa full time iyo part time. Haddii aad nasiib u yeelato marka aad dhamaysato koorsada barashada saxaafadda, Danan waxa ay ku suurta gelin doontaa in aad tababar dhameystiran si toos aad ugu qaadato haddii aad ka mid noqoto ardayda ugu horeysa ee ku soo baxda imtixaanka tijaabada. Xarunta barashada cilmiga saxaafadda ee Danan Training Center waxa ay ku taalaa degmada Hodan gaar ahaan dalcadda Taleex. Wixii faahfaahintaasi dheer waxaad kala soo xiriirtaa telefoon nambarada kale ah eber 6677 eber 356 eber 6677 eber 357 ama telefoonka kale eber 589 sagaal horay u gaar xarunta barashada culuumta saxaafadda ee Danan Training Center. Danan Radio wehelka ganacsiga saaxiibayaal waxaan idinkugu yeeray inaad iga caawisaan ganacsigan waan isku yara wareernay مع الأسف محاجرة مسكين ماركتين أيضا باهن تضبا يا إيقابل سنسوق جينتا تضبا معه تضباط هالنقطان سبب يعني شي بارك أي وطنكم في النفع فاهنت وحترك ألعاب تجنع سجادة يسوع بندقيستو ده سيدا درادد واحد باهن تاي إن لقول لقسيو دانان 94 ميكاتس تابلت محو أوروني هاي وكبعيها جنعسجا وما فهم وماركتين كأوقف يعني وأنا صاحب داعد وجنعسجا مرقرنا جارسين كلام ملايين dhagahooda ha Danan Radio siday dadka u jecel yihiin aan ka gartay sax ma anaaba saa u fakarayay meeqa mooge oo adoo kala maryaha markay xooran gaareen markii iida Danan Radio marar badan ba markii looga daayay inta ay maqsuud noqdeen ay malaf faraha kula jiraan waa muutanaya Danan Radio raadiyaha Danan wehelka ganacsi ama waxaan tisleer kala soo xiriir eber 6 ama eber 6 eber ama emailkeenu oo ah info@radiodanan.net kaamka meel uu gaari gala ma lahan inta inoogu jooji dhib ma lahan abayo halkan ayaa gaariga inoogu baakimaya imanaha markaa gudaha ayaan u galaynaa hay waaye soo dogo tartiibnaya xoogaay meelaha qodxi waxaa yeelay ku mudin wallaahi waa gabar aad u damqasho badan aad bay u naxariis badan tahay waa maasan tahay walaal xaaladdu caadi ma ahan kakac carruurtan waa iska dhalayaa kadibna waa iska soo banaan iska soo istaajina halkanaad carruurtan ilmaha iga burini iga raali noqo hooyo iga raali noqo abo iska daa ilmaha waxba isku mashquulinin meeshaas groupkan arhaada guriga iridiisa soo maro saaxeynta dhinaca gadaal mar maama adiga maxaa dhacay waabana daba socotaay makaabko idil baad leedahay inaga aamo
may waa u jeedaa aqalkayga hortiisa inaad marowside habar carfoonay raali noqo wiilkan aniga ayaa wato hortaadana lama maraayo raali noqo habar yar haway waska soconnaa leeyahay maya anaga aqalkeena waa kaas buushkaas ku muuqo soo ma jeedina kaas ayaa deganahay buushkaas oo kaliya ayaad ku wada nooshihiin adiga iyo hooyo ha maxaa dhacay buushkaas ayaan wada deganahay aniga iyo 5 cunuga iga yar hooyaday intaynaan meeshaas ayaa deganahay wallahi waa ka xumahay aad baan uga xumahay laakiin waxa ku sheegaya shaqada aniga aan ku geyn doono haddii aad si daacad uga soo baxdo noloshaan oo idin waxaan ku ballan qaadayaa inaad ka baxdeen adiga hooyadaada waayahay abow hooyadeena waa taas islaantaas meesha fadhido oo go-a kariska uga soo ma jeedina waaba adigiyo halkan lagu istaajiyey maasha allah hooyo wiilkan ayaan rabaa inaan ku baro haa hooyo maasha allah wiilkan miyaa rabtaa inay barto hooyo soo dhawaaw aboowe hooyaday waa tanaa barasho wanaagsan maamo barasho wanaagsan hooyaday waxaa la dhahaa cureeji barasho wanaagsan waa aniga hooyaday maasha allah hooyo barasho wanaagsan magacaygu waxaa la dhahaa caamir barasho wanaagsan wiilkeygii soo dhawaaw gurigaaga waaye hadda wiilkeyga ii soo dhawaaw gurigu waa gurigaaga fariiso halkaan ii fariiso hooyo horta waan dhowahay kowdhe gabadhaadii markaan arkay duruufta iyo xaaladda ay ku sugan tahay ayaa waxaan garowsaday inaan shaqaalaysiiyo maandhow duca qabtaay shaqaduna maxay ahayd waa jaariyad waa jaariyad wax walbay tahayba waan ogolahay kheyr allaha ku siiye bal soo dhawow mar kale hooyo waan dhowahay laakiin aan su-aal ku weydiiye yaa damiinka ah gabadha maandhow anigaa damiinka ahoo dhalay aabaheedna iyadoo yaraan kala tagnay anigaa soo korsaday gabadha waa gabar fiican waxba kaama soo gaarayaan ha ka cabsanin waxba kaama soo gaarayaan adeero ma laha miya maxaa dhacay adeeradii iyo aabbaha lama heli kara miya anaa adeer iyo hooyo iyo aabba iyo kulli u wada ah haa hadalkaaga waxaan ka dareemay adiga ayaa soo korisay anaa soo koriya okay ama wax walba ay hagaagayaan gabadhaadana inta karaankeyga ah waxaan isku dayaa in shaqadaasi aan la soo jeclaaday amaba aan u abuuri doono in wax badan ay ka faa'iidi doonto adigana wax badan ay kuu tari doonto xaaladan hadda aad ku sugan tihiin sida ugu dhaqsiyaha badan haddii gabadhaada ay daacad u noqoto shaqada marka aan filayo in wax badan iska bedeli doontaan maandhow kheyr allaha ku siiyo waad iga farxisa allaha kaa farxiyo qaar allah ku siiyo maandhow hooyo ducada ilaahay noo aqbalo laakiin mushaarkeedana inaan kuu sheego ayaan jeclahay mushaarkeeda waxaan ku bilaabayaa ama bisha ugu horeeya aan siinayaa $150 haddii shaqadeeda iyo weliba hufnaanteeda iyo kartideeda ay sii xoojisane bilba bisha ku xigto waxaan ballan qaadaya inaan dallacsiiyo oo lacagtaan wax ugu daro kheyr allaha ku siiyo ma 150 weligay arkay $1 aan ku casheyn jirno ku quraacan oo ku qadeynaahe kheyr allaha ku siiyo maandhow waa duceysantahay kheyr allaha ku siiyo maandhow hooyo aamiin dhammaanteennaba waxaan kaloo ku xasuusinayaa oo aan kuu sheegayaa maama gabadhan arabaxeeda jiifkeeda cuntadeeda waxbarashadeeda shoobinkeeda intaba aniga ayaan farta ka saari doono oo ay u sii dheer tahay lacagta mushaarkeeda ma aqaan kheyr allaha ku siiyo waa iga duceysa wallahi waa iga duceysata kheyr allaha ku siiyo hooyo hadda ayaan baxaynaa adigana waxa aan codsan lahaa inaad ina raacdo si aad usoo ogaato ama usoo aragto gabadhaada iyo guriga ay ku noolaan doonto isla markaana ay ka shaqayn doonto inaad soo aragto oo marmarna aad noo imaato ina soo booqato maandhow kheyr allaha ku siiyo waa naga farxisa waanu ku raacaynaa dhegaystayaal intaasna waxaan ku soo gabagabaynayaa qaybtii 6aad ee sheekadii la magac baxday jacaylkii jaariyada
sheekadani hal abuurkeeda waxaa iska leh al-ustaad aadan macalin cabdulaahi aadaamo isku dabaridka sheekadu waa maxamed deeq bare xaaji cumar fiyoore habeentii hagaagsaneed ee almuhandas liibaan cabdicali sheekadan waxaa idiin jilayay wariyaasha warbaahinta danan inta aanu ku kulmayno qaybaha kale sheekada waa bahdii oo isku duuban idinku dhaafaysa sidaas iyo ma dhaafno